السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كسو دواذا مقال عصب و pilot shooter qof kaan ka seenin pilot shooter waxa ay daawan kartaa muuqaalka hore aan soo dhigay channelkayga YouTube-ka sida aad u barato ama aad u ogaato yoo yahay pilot shooter marka maanta waxa aan ka hadli doonaa flying iyo coronavirus lockdown ama duulimaada iyo xayiraada coronavirus ay ku soo rogtay duulimaada tan ugu horeyso waxa ayaan ka bilaabi doonaa waa maxay coronavirus sidaan ognahay labadan beri waxa ay jiray teleefoonaha dhan waxa ay ku xirmaday cod oo ah wacyigelin oo naga wacyigelinayo coronavirus aan wada dhigeysan coronavirus waa ku dhacay Mareykanka waxa kale jeermisku loo yaqaan coronavirus oo ah xanuun ka jira caalamka calaamadaha ugu weyn ee cudurkan waa qandho qufac iyo neef qabasho iska ilaali cudurkan oo ku dhaqaaq talaabooyinkan soo socda si joogto ah ugu farxado saabuun iyo biyo soconaya muddo 20 ilaa 30 ilbiriqsi ah ku dabool afka iyo sanka tiish ama cudurda adigoo xusulka laabanaya marka aad qufacayso ama aad hindhisayso haddii aad isku aragto qandho qufac iyo hindhiso ha tagin meelaha bulshada isugu yimaadaan sida masaajidka suuqyada aroosyada iyo wixii la midka ah waa fariinta wacyigelinta caabuqa coronavirus nadaafadu waa iimaanka barkii marka arinta labaad aan ka hadli doono waa lockdown ama xayiraada lagu soo rogay adduunka dhan wadan kasta waxa ay xirtay xuduudihiisa dhul iyo cir sidoo kale wadan kasta waxa ay xiray wadanka gudihiisa meel kasta oo bulshada ku kulmi karto sida masaajidaha iskoolaha jaamacooyinka iyo elabooraha iyo meel kasta oo bulshada ku kulmayso sida oo cudurkan la dagaalo marka arinta saddexaad waa flying oo arinta ugu muhiimsan oo aan ka hadli rabno maanta duulimaadka waxa ayaa ku dhacay saameyntaas oo ah saameyn aad u weyn saameyntaas waxay keenay lockdownka ama xayiraada oo lagu soo rogay adduunka dhan hadda sidaan sheegnay easy down ayaa jiro laakiin ka hor maxaa dhacay ka hor waxa ayaa dhacay in duulimaada dhan habeen iyo maalin gudahooda lagu joojiyo oo dadka dhan xayirmadaan waxa ayaa dhacay wadan kasto inuu dadkiisa soo daabushto oo joogaan wadanka banaankiisa marka diyaaradaha qaar ayaa la ogolaaday inay duulaan sida diyaaradaha dadka soo daabulayo oo dadka wadankooda joogin wadankooda ku soo celinayo tan labaad waxaa la ogolaaday cargoga ama diyaaradaha caafimaadka qaadayo iyo VIP ama dad official oo dawladeed ama madax ah taas iyadoo la fasaxay waxa ayaa jiray in qof kasto laazim waxa ayaa ku ahayd hadoo rabo in oo wadankiisa loo noqo xataa inuu mask xirto elaboorka markuu marayo in diyaaradaha la buufiyo oo laga buufiyo bakteeriyada iyo elabooraha la buufiyo marka saas ayrantiisay ugu socotay hadda waxaa la bilaabay easy down ama in lockdownka la fududeeyo easy lockdown waxay kaalmaysay in duulimaadka qaarkiisa soo noqdo duulimaadkaas oo aad saameyn weyn ku dhacday oo diyaarado badan fadhiisteen shaqooyin badan lagu waayay laakiin hadda duulimaadka soo noqday waxa ay noqday easykaas waa fududeyntaas waxa ay kaalmeynaysaa wadan kasto inuu gudihiisa dhaqdhaqaaqa gobolaha la furo ama domestic flights local flights tan kusoo xigto waxay noqon doontaa international oo wadamo qaarkooda sida Turkish oo sheegatay waxa kale duulimaadyaasha hadda socdo ka mid ah duulimaadyaasha tababarka ama flight training oo ka socdo flight academies xarumaha tababarka oo adduunka ku yaalo oo wadan kasto xarunta ku dhex taasho wadankiisa gudihiisa ku dhex duuli karo oo qofka tababarkiisa heer ka gaari karo sidoo kale waxa ay soo gaarnay muuqaalkeena qaybtiisa ugu dambeysay like share subscribe sar channelkan sida ugu soo kordhino muuqaalooyin oo aad loogu faa'iideysto sidoo kale haddaad u baahan tahay consultant talo ama information duulimaadka ku saabsan waxa ayaad igala soo xiriiri kartaa social mediaga dhammaan usernameka waa pilot shooter salaam